Président, 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 président. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer Casal Joog, reer Cali Salabiix, waana jeceshiin, waana jecelnahay. Waad noo soo baxdeen, waa mahadsantihiin. runtii inaguma hambalyeynayo oo inaguma bogaadinayno soo bixistiina quruxda badan ee maamuuska leh ee maanta aad noo muujiseen ee waxaan inagu hambalyeynanaa ee inagu bogaadinaynaa sidaad ula dhaqanteen toddobaadkii la semaine de solidarité la yidhi ee halkaa lagu boodboodayay lagu damaashaadayay falcelintaad ka samayseen ayaan inagu bogaadinayaa oon inagu hambalyeynayaa. runtii warar waxaanu haynay sheegaya inay reer Cali Sabiix Casal Joog asal min asal ay qadiyadda iyo hawsha runtii ka indhagalaabteen ka gacmo laabteen ka joogsadeen ayna sheeda ka daawanayeen ayaanu war haynay. shalay galabtii magaalada markaanu dhex marnay ee aanu la kulannay bulsho weynta reer Cali Sabiix, oday ha noqoto, haween ha noqoto, gabadh ha noqoto, wiil ha noqoto, ee noo warrameen waxay noo xaqiijiyeen warka aanu haynay inuu yahay run bay noo xaqiijiyeen. waanu dhegaysanay waxayna noo sheegeen waxay gacmaha uga laabteen ay sheeda uga daawanayeen. waxaan leenahay runtii waxaad noqoteen dad xaajad yaqaan ah, dad wakhti yaqaana oo waxaa fahanteen qadiyadaasi inay haba yaraatee ininka inu qusayn ee dana kale laga watay. danahiina si fiican baad u fahanteen, si fiicanna waa nooga warceliseen. taa baan inagu hambalyeynanaa, inaguna bogaadinaynaa. runtii solidarité markaa laga hadlayo amba taakuleen amba isgarabsii markaa laga hadlayo waxaa la idhaahdaa micnaheeda markaa lagu qadaynayo waxa weeyi ficil dhaba oo meel walba ka jira, wakhti walba jawaabayo jooga oo joogtayn leh. maaha toddobaad yaroo la boodboodo oo la tuwayso maaha, waa wax joogtayn leh oo dadkeena tabaalaysan ee baahidu ay hayso si dhaba loo ag joogo oo maxay ahayd loo maamulo. waxaad fahanteen qadiyadaas inayn ahayd maaweelo. maaweelena waanu diidnay annaku, waxaanu ku diidnay maaweelo iyo nolol way isdiidaan baa la yidhi. oo nololi runtii nololi waxa weeyi waa xaqiiqo taagan, nololi waxa weeyi dadaal taagan, nololi waxa weeyi go'aan qaadasho maalin walba taagan, amba ha qaraaraado amba ha macaanaadee waa go'aan qaadasho. maaweelona waa marin habaabin, maaweelo waa maskax lumis. maskax lumisna annaku ma aqbalanno. maaweelo iyo rajo waa laba arrimood oo kala duwan. runtii way kala duwan yihiin oo rajo waxa weeye runtii riyo iyo himilooyin xaqiiqo ku salaysan. waa rajo soo socdo. xaaji ismaaciil ii soo dhaweeya. xaaji ismaaciil ha loo sacabeeyo. xaaji ismaaciil ha loo sacabeeyo. soo soco xaaji ismaaciil. fariisiya runtii waxaa la yidhi maaweelo iyo rajona waa laba arrimood oo isdiidayo. rajo waa riyo iyo himilooyin xaqiiqo ku salaysan oo runtii u baahan sabir. maaweelana runtii waa riyooyin iyo himilooyin been ah. dee been ma rabna anaku. maaweelo
iyo mustaqbalna way iska soo horjeedaanoo mustaqbalku waxaa jiheeya nolosha maanta taagan in lala falgalo maaweelana nolosha maanta lama falgalaso innaku waxaynu u baahannahay nolol baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay rajo baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay mustaqbal baynu u baahannahay saddexdaana maaweele kama jawaabayso nidaamkana 47 sannadood runtii wuxuu ummadda ku soo marin habaabiyey waa maaweelo wakhtiga maanta aan joogno dhibaatadana haysata maaweelena kama jawaabayso baahidayda waxaan leenahay falkaa 7 cisho in haystay daacadnimo kuma jirto oo waxa la yiri daacadnimadu haddayna ahayn daacadnimo aynu lahayn gadaal buu ka xumaadaa arrintii gadaalba way ka xumaatay 2 toddobaad kadib maxaa soo baxay waxaa soo baxay qaraar oranaya oo adag oo la liqi kari leeyahay ilaa hadda oo oranaya kaarkii caymiska deesondis la oranayay lama isticmaali karo la iskuma daweyn karo maxay ka dhigan tahay 7 cishaan boodboodi iyo solidarité u boodboodi iyo ummadeena kuwii ugu tabaaleysnaa ee Soomaaliyeed Kenya 20 jirka ahaa 30 jirka ahaa gabadheeni wiilkeeni hooyadeeni aabaheeni awowgeeni bukay ee kaarka caymiska haystay markuu isdaweyn kari waayo le maladie chronique galku wuxuu oranayay cudurada joogtada ah sida macaanka subaga iyo cudurada kale ee uu la nool yahay sida maalinlaha uu la nool yahay loo daweyn yahay mas'uuliyadda in la daweeyo iyaa lahaa de nidaamka baa lahaa nidaamkaasina wuxuu samaynayo way iska soo wada horjeedaan 7 cishaan boodboodiyo oo iskarabtaag muujin nolosha dadkuna kaad caymis ay isku daweeyaan ma helayaan wax is qaadan karaya ma hawlaalayn isma qaadan karayso isma qaadan karayso waa wax aan diidnay waanu diidno walaalahaygi oo annaku waxaan u soconnaa sida uu soo sheegay walaalo aadan maxamed cabdu socdaal baan nahay socdaal isbedel doonaan nahay dakhil waanu ka yimid sida iyo si qurux badan baan noo soo dhaweeyay sida iyo si qurux badan baa diyaar lagu yahay hawsha aan wadno hawshu mid un bay u baahan tahay hadeed intii badnayd waanu soo dhambaynay hal shay baad hardhay waxa la yiri odayba wuxuu deganaa banaan buu deganaa baa la yiri laba magaalo dhexdood buu deganaa odayga ilaahay qani buu ka dhigay laakiin jees buu ahaayo safarada soo mara maxay ahayd doona inuu u soo marti gala ayuu habeenkii u dadin jiro wuxuu ka oran jiray guriga wax kasta weeyaan oo uu buuxaaye gurigu uu buuxaaye biyo wax lagu karsado u baanan oolide biyo raadiyo halka u sii socda marka waa la barto marka la bartay baa la yiri safar mar dambe soo baxaya yiri war bal odaygii baynu habeen waqti dambe aynu gaari doonaaye biyaha iska sii qaadano bilaa biyo ayuu sheegan doonaaye markaasa biyo soo qaateen de waqti dambe ayay ku soo beegmeen reerkii markaasuu odaygii markii albaabka lagu qarqaraacay uu soo baxo ayaa laga yiri ayuu yiri sidii uu khaarijin jiray oo buu khaarijiyay de markuu khaarijiyay in bay jawaab u celiyeen ay ka yiraahdeen war odayahow reerku hadduu camilan yahay uu buuxo anakuna biyihii wax lagu karinayay waa sidana odaygii fag intuu soo yidhi islaantiisii oo hurdo ku soo boodu yidhi heblayoy toos waa la isku soo dhaansadee dee hawshani waxay u baahan tahay annaku aan u soo dhaansanno waan buuxnaaye ma u soo dhaansanteen oo dab soo maa bas de waayahay assalaamu calaykum waa maasatiye